ilaahay baa mahad leh isugu keenay nabadqab iyo inoo ka shaqeyna horumar iyo danteenna marka hore horumarku wuxuu ku yimaadaa waa nabadda intaynu nabadda xoojinno ee khilaafaadka yareynaba horumarkan unu korinayna meel la isku khilaafsan yahay horumar lagama gaaro marka maamulka berbera iyo odayaashiisaba waxaanu ku bogaadinaynaa inay nabaddu aad iyo aad u xoojiyeen baryahan dambe oo ay ka muuqato in cid waloo isku tiidu berbera oo ajnabiga o dhan kii dalka yimaada berbera ay gaarsiinayay waa tusaale wanaagsan waxaa kaloo mahadnaqaynaa gobolka maamulka gobolka oo aad iyo aad u shaqeeyey dadku mayrada aad bay uga cabtaan laakiin waad nasiib badan tahadoo magaalada dadku aad bay ku ammaaneen iyaba waa nasiib halkaasaad ka sii wadaysaa dadkana tusaalaad u noqonaysaa adigana dhaxalka u weyne bilaad buu helaa dee aakhirana waa dembi dhaaf adduunkana waa magac wanaag dee labadaas haddii u helaa ilaahay dee waa labada dadka waafajiyo aad iyo aad baa yar bogaadinaya berbera halkaana ka sii wada ogaada berberena waa dadkii oo dhan wuu ku soo socdaa kii cirka ka imanayay iyo kii badda iyo kii dhulka imanaya waxaa kaloo idiin sheegaya maanta suldan garoolkii berbera ee in badan laga murmaayey ee imaaraadku dhisayey